markay dadku igu dhahayeen waxaad isa siisay qof kaa tegi karo, taasi shaki ayaan ka muujin jiray waana ka gilgilin jiray, laakiin hadda ayaan dareemay xanuunkaas. Ma jiro ruux dhammaystiran, waana sababta aad mar walba ii dhaawacdo, laakiin mid ogow, dhaawacaas waad iga badbaadisay, waxaana taasi ugu dulqaatay oo ay ku dhacday waa jacaylka dhabta ee aan ku qabo. Soomaalidu waxay tidhaahdaa qofkii imaanshahaaga og ayaa ogaada bixitaankaaga. dhab ahaan aniga been ayaa isu dareensiiyey inaad jacayl ii ogeyd, laakiin tegistaada ayaa ii run sheegtay. hal magac ayaan ka xasuusanaa dumar oo ah magacaaga, hal qalbi ayaan isu dhiibay oo kaaga ah, laakiin magacaas iyo qalbigaas waxay igu noqdeen laba shaqsi oo kala socda. markaan kuu dooxay uurkayga oo aad aragtay dhiiggayga inaad iga sasto, waa calaamad muujinaysa go'aan kuu qarsoonaa oo ahaa bal tijaabi ruuxan. waxaan ku siiyey furaha noloshayda, waadna i cidlaysay. furahaas oo keliya kuma aanan siinin, sidoo kale waxaan kuu raaciyey naftayda oo waa aad sidataa. haddii aan ogaan lahaa dhaawacan inaad iga badi doonto, waxaan iskaga baxsan lahaa jacayl oo dhan. si tartiib ah oo ka fiirsasho leh ayaan kuu siiyey noloshayda, adiguna si fudud oo degdeg ah ayaad uga baxday. waa anigoo walaalkiina Zaki Zama. haddii aad ka hesheen muuqaalkan, fadlan la wadaag asxaabtaada adigoo usii sheer garanaya. haddii aad nagu cusub tahay si aysan kuu dhaafin muuqaalada xiga, fadlan waxaa kaa codsanaynaa channelka subscribe inaad saarto, like aad nagu dhiirigeliso.